Israa'iil ayaa dishay madaxa amniga ugu awoodda badan ee Iiraan Cali Larijani oo ahaa ninkii qaabeeyay siyaasadda nukliyeerka iyo istaraatiijiyadda difaaca ee Iiraan isla markaana ka mid ahaa dadka ugu awoodda badan dalka kadib hogaamiyaha sare. Jawaabta Iiraan waxay ahayd mid aad u ba'an, roob gantaalo ah, diyaarado aan duuliye lahayn oo daroonis ah iyo bambooyinka kala firdha ee cluster bombiska ayaa ku da'ay korka Israa'iil, taas oo noqotay mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee abid ay Israa'iil la kulanto. Hubkan clusterka ahi waa kuwo aad u halis badan sababtoo ah waxay ku qarxaan hawada dhexdeeda iyagoo ku kala firdhiya qaraxyo yaryar oo badan oo ku baahaya aag ballaaran isla markaana ka taga bambooyin aan qarxin oo weli khatar ah muddo dheer kadib weerarka. waxaa ka sii daran aad bay u adag tahay in la qabto ama la joojiyo sababtoo ah markii madaxa gantaalku furmo cirka waxaa durba ka buuxsama qaraxyo yaryar, taas oo ah sababta hubkan looga mamnuucay sharciyada caalamiga ah. Iiraan waxay sheegtay in markii ugu horeysay dagaalkan ku isticmaashay gantaalka Sejo waa gantaal ballistic ah oo shidaal adag ku shaqeeya, masaafadiisana lagu qiyaaso ku dhawaad 2,000 kiiloomitir isla markaana qaadi kara culays gaaraya qiyaastii 700 oo kg. waxaa la sheegay inuu gaari karo xawaare ku dhow 14 maash. xawaarahaas aadka u sarreeya awgiis aad bay u adkaanaysaa in la qabto, taas oo siinaysa awood uu ku geysto burbur aad weyn. ka waran haddii aan kuu sheego in dagaalkan bariga dhexe oo si qarsoodi ah ugu lug yeelan karaan Shiinaha iyo Ruushkaba, sababtoo ah in Iiraan laga yaabo inaysan kaligeed samayn karin waxyaabahan oo dhan. sida ay sheegayaan warbixino sirdoon oo dhowr ah, shabakadaha dayax-gacmeedyada ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay Iiraan siinayaan xog toos ah waqtiga saxda ah oo ku saabsan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil. isla waqtigaasna howlwadeenno Ruush ah ayaa la rumaysan yahay inay Iiraan ka caawinayaan la socodka maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo diyaaradaha dagaalka ee ka howlgala guud ahaan gobolka. weerarada dhawaan dhacay ayaana keenaya su'aalo culus. nidaam raadaar ah oo ku kacay $300 milyan oo yaalay Urdun ayaa lagu burburiyay si aad u saxsan. kooxda markabka dagaalka ee USS Abraham Lincoln ayaa la sheegay inay wajahayaan weerar isku dubaridan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo, taasoo ku qasabtay inay bedeshaan goobtii ay joogeen. sidoo kale Qatar, nidaam digniin hore ah oo qiimihiisu gaarayay $1 bilyan ayaa lagu burburiyay hal weerar oo diyaarad aan duuliye lahayn ah. heerkan saxnaanta ah wuxuu muujinayaa in qof ama cid ay suurtagal tahay inay Iiraan siinayso xog sirdoon oo aad u saxsan, laakiin dhibaatada ka weyn ayaa ah tan Mareykanka iyo Israa'iil labadaba waxay gabaabsi ka yihiin gantaalada Patriot ee wax lagu qabto. sidaas darteed Washington waxay hadda si aamusnaan ah uga fiirsanaysaa inay nidaamyada difaaca cirka ka soo wareejiso Kuuriyada Koonfureed iyo Japan una rarto bariga dhexe. ma ogtahay in Iiraan dhab ahaantii leedahay laba ciidan isla markaana hadda ay suurtagal tahay in iyagu isku jeestaan oo islaayaan? mid waa ciidanka IRGC oo ah ilaalada kacaanka ee awoodda badan, kuwaas oo ilaaliya nidaamka talada haya. midka kalena waa ciidanka Artesh oo ah ciidanka qaranka ee caadiga ah ee Iiraan. muddo 10 sano ah labadan ciidan waxay wada shaqaynayeen sidii hal ciidan, laakiin hadda warbixino ayaa tilmaamaya inay jabayso kalsoonidii dhexdoodu. sida ay sheegayaan warbixino kala duwan, askarta Artesh ayaa ka cabanaya inaan loola dhaqmin sida ciidanka kale ee kacaanka, iyadoo aan la siin cunto ku filan, biyo ku filan iyo rasaas aad u yarna la siiyo. taageero caafimaadna aan la siinin. markii askarta dhaawacantay loo baahday in la daadgureeyo, waxaa la sheegay in ciidanka IRGC-gu ay diideen inay qaadaan halkii askartaas geyn lahaayeen ay qaadi lahaayeenna waxay mudnaanta siinayeen daadgureynta qaybaha gantaalada jajabay. isla waqtigaasna waxaa ka sii yaab badan ayaa dhacaya. qaar ka mid ah askarta Arteshka ayaa si fudud uga baaqanaya shaqada. xitaa xubno ka tirsan IRGC-ga ayaa la sheegay inay ka tageen goobahoodii shaqada. hogaankii Iiraan ayaa lagu qasbay inay askartiisa gaarka ah ugu hanjabto dacwado khiyaano qaran ah si keliya loogu qasbo inay sii xidhnaadaan diriiskooda.